السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوينت الصوماليات وايد سلامي مالك استودة الدنيا تحلى بيها أتكت جوكتان وايد سلام دلالة دي إمارات يا كينيا يكون مغيين إمارات يا كينيا يكون مغيين waxay ka soo qaadanayaan lacagta ay dalkeena ku burburin lahaayeen oo dadkeena isugu diri lahaayeen oo gadaal noogu celin lahaayeen ayay uga maqan yihiin ay ka soo qaadayaan ma garat ilaahay baan ka magan galnay kenyaati iyo imaaraad iyo gaal ilaahay baa ka weyn ilaahay baa ka weyn ilaahay baan ka magan galnay ilaahay baan ka magan galnay شرطة أجنبية ششايا هي شرطة مضابة هي ضمني هي شرطة الرابلة هي انت الله شغايسته إلهي ما كم قل مال في حنبي وحنا مريان إذا وادي السنة الحمد لله رب العالمين دولة النماذج وأنه استاكتي مال في حنبي وحنا مريان وعي ربانينا إنك كلا داديان نكي توقع oo shisheeye lacag ka qaadan jiray waa anaaqsanya ninkii hantida dadka iska boobi jiray iyo lacagtan ciidamada mushaarka loo siinayo wax lagu dhisayo waa anaaqsanya ninkii dhulka dadka inta ka kiciya iska dhisan jiray waa anaaqsanya waa anaaqsan yahay shabaab siduu dalkan u xukumay uma xukumo waa anaaqsan yahay dagaal baa ku socda marka shacabka Soomaaliyeed ma niin xoolo wixii noo xun iyo wixii noo san waa kala garanaynaa 30 sano yaa rag hadba dhinac noo eryay oo hadba dantooda naga gaaray oo hadba sidii ari ay leeyihiin iyo xoolo ay leeyihiin hadba mawloo jeedinayeen oo mar isku kaaya jeedinayeen oo marna kala jeedinayeen waxa weeyaan dadka Soomaaliyeedow isbitaal firiyaan rabnaa isbitaal dadkeena lagu daaweeyo ayaan rabnaa xataa dadka iyaga qurbihii joogay waa muruxeen halkii qof markuu jirrado waa inaad indiya u qaaddo waa inaad turki u qaaddo waa intaasoo $1,000 xagee ka keenaynaa dadka Soomaaliya qurbaha jooga Soomaalidu waa qaxoonti soo qaxay oo waxay haystaan ba iska yar yihiin oo xamaalayna oo noloshoodaba aan ka badinin marka si dadka dhibkaasu dal iyo dibadba nooga haro waxaan u baahannahay inaan isbitaal u helno dadka lagu daaweeyo oo firii u ah oo dawladdu damaanad qaada daweynta dadka waxaan rabnaa dadku inay shaqo helaan waxa dadku isku dilayaan waa gaajada waxa xanuunka keenayaana waa gaajada dadku hadday maxay ahaytay nabad iyo cunto fiican helaan oo jirkoodu nafaqaysto xanuunkaanu ma jirayo waxaa kaloo dadka isku diraya waa aqoon la'aanta waa jaahilnimada waa waxbarasho qof walboo Soomaaliyu maanta isbitaal ma awoodo qof walboo Soomaaliyu maanta ma awoodo waxbarasho marka dalkan shalay waxbarasho firiyuu lahaa ilaa heer jaamacadeeda ilaa iskoolarship isbitaallo firiyuu lahaa oo shilin layska qaadaynin marka sidii inaan ku soo noqdo annagoo dhan waa inaan ka wada shaqayno waa inaan annagoo dhan dal iyo dibadba taasay dantayadu ku jirtaa waxay dantayadu ku jirtaa meel walba carruur Soomaaliyeed baa ku dhiban raggii Soomaaliyeed especially wiilashii aad bay qurbaha ugu dhiban yihiin aad bay isugu dilayaan jeel walbay ka ooyayaan waxa weeyaan iyagoon wax u hilinaya iyo wax u doodayaa jirin oon hooyadii lacag haynin yaa waxaan macno lahayn jeel intaasoo 100 sano loogu jaraya dambi walba mid ay leeyihiin iyo mid ayna lahaynba waa lagu xukumaya waxaynu waxa uga biixi karnaa carruurta inaan dalkooda calaykum assalaam maxamed carruurta in dalkoodii nabad looga dhigo oon ilmahan dalkoodii ku celinno dadka Soomaaliyeedow waxaan ku soo daalnay oo soo tijaabinay
وقبائل إيا نجعليسي محان كفائل انتاسان قبيل دبا أرديني محاي نوقبتين وارنتاسا كمان تفرماجان حبو قبيل كاغو حكم كايه محوكو قبت محوكو قبت كفرماجا قبيل ككون حبو انتاسو أما نكو حقا رئيس الوزراء أما مدحويناها محوكو قبت دالكان محو قبت محو دانتا قود كقبت محو دالكان أقبتي كو إيشك warmarkaad leedahay farmaajo ma rabo maxaa ka wanaagsan oon maanta haysanaa yaa farmaajo ku doorsanaa qof aan ku doorsanaynaa ma jirto weligee 30 sano waxla dalkaanu laami buu u baahan yahay iyo waxla dalkaanu ciidan buu u baahan yahay iyo waxla warwasaqda iska nadiifiya iyo waxla dalkas idinkaale shisheeye male ee dalka badooda loo soo celinaya ninkaana ka arag marka waxa weeyaan Soomaali waa hal qabiil farmaajo ninka qabiil ku diidayo farmaajo waa hal qabiil oo Soomaali la ah reebal marka dad waa reebal waa Soomaali qabiil waa ka maraya ninkaanu nin la xaqaadanaya ma aan oo shisheeye la xaq u gadan karo ninkaanu nin daara iyo adduunyo u jeeda ma aan ninkaanu waa nin lagasi iyo magac inuu ka taga u jeeda ninkaanu waxa ka go'an inuu dalkan caruurtiisa u xarxaaro ninkaanu caruurtiisa waa nin qurba soo arkay waa nin dhibka haysto dalla'aanta soo arkay waa nin inaad qoxoonti dalkale ku noqoto soo arkay ninkaanu wuxuu ka dadaalayaa in caruurtiisa dalkiisa uu nabad uga dhigo iyo caruurta Soomaaliyeed inay caruurtiisu dalkiisa shaqo uga helaan inay caruurtiisu ammaan ay qurba uga soo guuraan oo dalkiisa u ku deganaan ayuu rabaa kaligiis maahan dadka iyaga qurbaha arkay oo dhanu waxaan fahamsannahay oo soo dhadhaminay waddankaaga meel la midu inaysan jirin meelaad uga sharaf badan tahay dalkaaga inaysan jirin ayaannu soo ogaan war dadka Soomaaliyeedow war ilaahay aan ka cabsan war waxa ilaahay aan ka cabsan war walaalkaa waxaa la yidhi laba jeer u hiili walaalkaa hadduu xaq leeyaho laga gardaran yahay u hiili hadduu walaalkaa xaq daran yahayna u hiiliyo xaqdarrada ka qabo war ninka maanta ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ka een calanka Soomaaliya ninkii ra'iisul wasaarihii Itoobiyana calankiisa lagu agsawiray asagana aan calankiisa la soo agdhigin ee meesha darbiga ah sidii homelesskii la fariisiyey magacii Soomaaliyeed iyo sharaftii Soomaaliyeed iyo sharaftiisii buu dilay war wax ka wanaagsan war ninka maalin walba dani iyo madoobe maalintii farmaajo la doortay yaa ugu dambeeyay Garowe iyo Kismaayo ay ku shaqeeyaan Kenya ay u ordayaan Imaaraad bay u ordayaan war inagama qarsoona maanta gidigood waxay ku shirayaan Imaaraadka waxayna u tageen lacagtii dalkan lagu burburin lahaa in la soo qaato markabkii dhuxusha ka qaaday Kismaayo Axmed Madoobe dhirta dadka gaajada u dhimanaya xooluhu u daaqi lahaayeen uu nabaad guuriyey ayuu lacagtii buu ka soo qaadaya war dadka Soomaaliyeed hurdada ka toosa war hurdada ka toosa war gaalka jooga qurbaha kugu qabiil maahan aad baad ugu faraxsanta waayo ilmahaagii baa nabadgelyo ku helay ilmahaagii baa dawo ku helay ilmahaagii baa shaqo ka helay war waxaa kan dalkaaga kuu dhisaya markaad gaalkiisaa ugu faraxsan tahay ka dalkaagii kuu dhisaya kula diinta ee kula dhaqanka ah maxaad u mucaaradaysaa gaalkaba ma mucaaradaysid war qofka wax qabadkiisaa la fiiriyaa war qofka wuxuu la qabtaa qofku wuxuu yahay baa lagu qabtaa war faa'iido ma keenayso qofkaanu waa reebel ee ma rabo ma keenayso faa'iido maxamed siyaad baa lagu ridi maxaa laga keen maxaa laga faa'iido maxamed siyaad barre oo dalkan dawo iyo isbitaal iyo iskuul iyo ciidan iyo afay leeyihiin iyo xorriyad u hayay oo waliba Afrika qayb ka mid ah xoraayaa la yiri waa reebel ma rabno
وريبله مربنا ويري عبد الله يوسف الله الماضي oo ka masayrsana masayrku waa cudur waligiisu jiray qaabiil baa haabiil ku dilay waligaan ma nin masayrsan ayaayna qaribaya waligayo ma nin ka masayrsanin yaan ku jiraynaa dhexdooda oo dalka yagii waxaa burburiyey waa ninka masayrsan war aynu dadka Soomaaliyeedow qofka wax qabadka wuxuu dalka u qabanayo aynu fiirino war badda waa wadaleena war caasimadda baddu soo celiyay waa wadaleena caasimaddu dhisayana waa wadaleena ciidanku dhisayana waa wadaleena carruurta shaqaynaysana waa wadaleena hawadu soo celiyayna waa wadaleena ma garad iskuullada uu fariiga ka dhigay waa wadaleena war way inoo fidaysaa insha allahu raas casayr iyo raas kambooni ayay noo gaaraysaa war farmaajo wax nooga wanaagsan ma haysano nin nooga dhaamaa oo siyaasiyu ma jiro 30 sano maanaan arag wax farmaajo la mid oo wax inoo qabta maynaan arag rag daaran naga dhisanayo iyo rag naga taajirayo iyo rag hoteella naga dhisanayo oo jas naftooda keliya u naxaya yaana soo rogay war ilaahay markuu mid inaga mida ayuu ilaahay naga soo dhex saaray war ma waxaan noqonaynaa reer binu israa'iil nabigii loo soo diraba waa muxaaradaye ma garatay calayhi salaam ilaahay markaasuu yurub iyo maraykan iyo itoobiya iyo kala cayriyey oo kala diray war sidii war dhul wanaagsan baa alla na siiyey war dad wada muslinaa alla naga dhiga war maanta 30 sanaan ilaahay baryayn war qofkaan ilaahay ka baryaynoo alla noo keeno war waa qofaan naxadayn war waa qofaan shisheeye gadan karin war waa qof nadiifa war waa qof wadaniya war waa qof wax noo qabanaya war waa aabe carruurteenna jaalka liibiya ku xihan iyo ka iiraan ku xihan iyo ka itoobiya ku xihan iyo ka indiya ku xihan waa nin tabaya oo leh meeshay safaarad joogtaba war fiiriya bal jaalasha wax carruura Soomaaliya ka soo fiiriya war xaggaan weligaan ka helnay wax saasa xaggaan ka helnay weligayo qof carruur uuna dhalin ka fakeraya raggeenna soo maray carruurtoodun bay ka fakerayeen carruurtooday daara u dhisanayeen carruurteenna gaandhari bay ka dhiganayeen gabdhaheennay gadanayeen waxa weeyaan war ninkani ammaanadii waa xajiye waa calaamad wanaagsan oo qofka lagu doorto oo lagu ammaano war ninkani dalkii ciidan buu u dhisa waa wax qofka lagu ammaano waa halkaan u dhimanaynay oo cadowgu maanta nooga baqaya war ninkaanu laamiyadii buu dhisayaa iskuulladii buu dhisayaa xafiisyadii buu dhisayaa dawladnimadii buu soo celinaya waaba nin ka fakaraya war dalku inuu sidii normalkii ku soo noqdo intaba yaale dadkeenna iskale dalkeenni baa leh farmaajo caawa dhaxal buu nooga tegayaa aan aragno nin baa wuxuu rabaa inuu noo qaqleeyo oo noo sheekeeyo caawiya barri inuu noo sheekeeyo ma garatay caawoo dhan war maxaad iigu sheekayn dadka Soomaaliyeed sheeke ma rabaan hadal ma rabaan waxqabad baan rabnaa nabadgelyaan rabnaa dawaan rabnaa isbitaal baan rabnaa iskuul firiyaan rabnaa ilaahumad ciddaad rabta ahaat marka waxa weeyaan gaaladii muslimka aan ahayn oo markaan intaa ka helnay waa taabacsanna sharcigii baan raacaynaa waa ammaanaynaa waa dooranaynaa maxaa noo diidan qofka muslimka ah ee dalka iyaga noo hagaajinayo maxaa farmaajo caayu leeya lagu caayaa kuwa farmaajo caayow maxaad farmaajo ku caydi wixii la xadayay buu joojiyey tuugadu waa caynaysaa ciidan buu dhisayaa kuwii amisoonka ay ilaalinaysay oo dalka laga saaraya waa caayaya
farmaajo dadka caayaya waa dadka Jubbaland Kenyaatiga keenay oo Kenyaatigu ilaaliyo oo aan sii joogi karin haddii ciidanka iyagu dhismo ma garatay waxa weeyaan kuwa dalka iyaga kuwa waxa weeyaan maxay ahaytoy kuwa dalka iyaga kuwa dadka farmaajo caayaya waa kuwii masaakiinta dhulka inta ka kiciya dhisan jiray waa kuwii badda horaan gatay waa kuwii sadbursiga qaadan jiray ee dhihi jiray Soomaali baa kala goynaya haddaan laysin aniga sadbursi dalkoodana wax u qaban jiray waa kuwii Soomaaliya inay kala gooyaan 30 sano ka soo shaqaynayay waa kuwii Kenyaatiga u dilaalayay waa kuwii Imaaraadka u dilaalayay waa kuwii carruurta organkooda ka gadayay xalane ka gadanayay weeyaan kuwa aan rabin gaalada in dalka laga saaro waa kuwa kontraktiyada noocaas aan aqoon adduun iyo aakhiro midna u wanaagsanayn waxa uu samaynayay oo dawladu hadday dhisanto oo ciidanku meel walba qabsado businesskoodii joogsanayo waanu ognahay waanuna fahamsannahay kuwa ku ducaysta ilaahu farmaajo uusan soo noqonin kuwa Puntland iyo Jubbaland ka taliya yaa kowka ee aniga dad iigu xiga waa ogsoonahay ee intaas dawladdu jirtay labada lugood ku dhegana ee maalin walba wax walba oo dawladdan ku burburi karaan isku daya waanu guulaysanay gadaalna uma noqonayno shacabka Soomaaliyeed dal iyo dabad waan soo jeednaa hooyo iyo carruur waanu soo jeednaa annagu farmaajo wuxuuna tusay waddada inaan dalka dhisan karno farmaajo wuxuuna tusay dalka inaan leenahay farmaajo wuxuuna tusay inaan annagu awooddu gacmahayaga ku jirto farmaajo wuxuuna tusay inaan ciidan dhisan karno farmaajo wuxuuna tusay mar labaad Soomaaliya inay xagaheeda ku istaagto inay possible macquul ay tahay farmaajo wuxuuna tusay inaan tuugada iyo jaajuuska shisheeyaha u adeegayo aan iska dhixin karno oon dhihi karno now tuuga nugu qabiilka inaan dhihi karno now taasuu farmaajo na tusay farmaajo wuxuuna tusay awooddu inay hooyada Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed iyo carruurta Soomaaliyeed awooddu inay gacantayada ku jirto inaan dalka leenahay in dalka Kenyaati lahayd inaan qaadka joojin karno inaan Kenya dalka ka saari karno inaan badda soo ceshan karno inaan Imaaraadka badahayaga ka cayri karno farmaajaana tusay inaan gaalka UN u sarreeya dhihi karno bersana nangaraata warqad inta u qorno ka bax dalka oo una sii joogi karin oon dal xoranahay farmaajaana tusay أجر الله كسيو أجر الله كسيو فرماتي أجر الله كسيو عروتي سنة الله وحفظ تعالى داربانو إسينا فرماتو وانك ويستاغي وحنين هورا ويستاغي لواي وانك قالدي يري get out أمر كايغا كوشخي أمدال كايغا كبح فرماتو وانك دلن يرضا يدي سراكيشا كدقي وهالكا درجة وحري farmaajo ilaahay ha barakay farmaajo waa ninka farxaan qaroole iyo jenaraal odawaa Yuusuf Raage jenaraalada nooga dhigay oo 30 jira adduunka dal ku yaala oo wiilashayada 30 jirada oo sharafta iyo 20 iyo dhowr jirada jenaraalada waa dhowr iyo 20 jir buu ahaa markuu qaatay xidiga nin lamidu ma jiro wadan qiimahaas wadan ay ubadka iyagu ku yeelanayaan ma jirto kun wiil iyo 5 kun oo wiil oo wada calanku garabka u suran yahay oo suudku dhaxda ugu xiran yahay daltigu oo nuskubaankoodii iyo buraashadoodii garab dhabarka ku wata oo Soomaaliya oo labisan oo jirkoodu dayacnayn oo uniformkoodu dayacnayn oo isdhinac taagan 5 kun oo wiil oo hal meel wada taagan oo Soomaaliya oo tababar heer sare haysata oo angaaja ka muuqan oo aan dayac ka muuqan
farmaajaana tusay farmaajaana tusay ilaahayow rabbiyow ilaahayow farmaajow ilaahayow rabbiyow saad ciidankayaga ugu naxariisatay ilaahow janno fardowsa ku geed ilaahayow adduuniya aakhiraba kuu sharaf waxa weeyaan taalaan soomaaliya dhan baan uga dhisaynaa guri walboo soomaaliya yaa taalo dheer uga dhisaynaa farmaajo allaha ku sharfo thank you very much allaha ku barakeeyo carruurtaada allaha kuu xafido saad soomaaliya u nuurisay qabriga allaha kuugu nuuriyo ma garatay waxaanan la xaqiri karin tiirarka nabad iyo nolol qoorqoor intaasoo milyan yaa lagu gargariyey waxaa loogu yeeray jabuuti waxaa loogu yeeray imaaraad waxaa loogu yeeray kenya qoorqoor waa diiday in lagu gato ilaahay ha ku barakeeyo tiirarka ugu adag ee dalkaanaata waxaa la mida lafta gareen oo la gadan waayey si walba inta dani iyo madoobe isku dayeen iyo imaaraad iyo kenya inay lafta gareen lacag ku gataan thank you very much waanu ognahay ninka nagatiya ninka kale cumar finish maalintaad aragto cumar finish muqdisho laami dhisaya hadda kacduu dhisaya markuu intii kaloo dhan waday kacduu hadda dhisaya kacduu laami saa u saaraya ma garat saasuu dalkii cumar finish xafiis buu dhisaya laami buu dhisaya stadium buu furaya ilaahay waxaan kaaga baryey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku barakeeyo cumar finish lafta gareen ninka la yidhaahdo qoorqoor ninka la yidhaahdo guudlaawe ninka la yidhaahdo janannada ciidanka yaga cali yaro cali halyayga da'da yar cali yaro cali maya markay damcaan allah meel walba soomaaliya qas ay ka sameeyaan shisheeye kuwa adeegsto farxaan qarooliyo jenaraal odowaa markay istaagaan sidii beled xaawo yaa lagu kala baxaa sidii beled xaawo 7 minutes ama muqdisho ha noqoto ama gada ha noqoto ama guri ceel ha noqoto 7 minutes yaa ku soo afjaraan ciidankeenu markaan aragno inta ay nool yihiin qalbigaa noo degan maanta waxaan ku fakarnaa xaggee sidee kor ugu soconnaa maxaan qabsannaa xaggaan qabsannaa maanta gobolkaan wax ka qabsannaa maanta xaggaan dekad kale ka dhisannaa maanta taasaan ku fakarnaa maalin walba waxaan ku fakarnaa xaggaan maanta wax ka qabsannaa xaggaan iskuul ka furannaa xaggaan isbitaal ka furannaa kama fakarno anymore kenya dalka idinku haysata ee baddii ma la soo celin kama fakarno imaaraad baa dekadihii boobaya intuu farmaajo yimid kama fakarno waxqabad baan u gudubnay intaan farmaajo imaanna waxaan ka fakari jirnay dalkii ma la qaata dalkii nima kenya iyo etoobiya loo qaybiy badaha iyagii ma imaaraad baa qaatay talow dalkii xaggaan ilmaha la aadi doonaa talow ma falastiin baan noqon doonaa wallaahi saasaan ka fakari jirna maanta cabsidaas way naga baxday cabsidaas way naga baxday alxamdu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad ha u sugnaata kuwa xabeebtayda wax ka sheegayow xabeebtaydu 100 aan xabeeb lahayn kumaakun aan xabeeb lahayn ayay uga fiicanta wax badan baan ku qabtay wax badan baana ku bedelay ma garatay xabeeb baan leedahay xabeebtayda markaad fiirinaysidna waa ku ogahay inaad i aamusisisaad rabtaan imana aamusisiin kartid xabeebtayda waad i maqlaysaa ma garatay xabeebtayda waad iga maqlaysa xabeebtayda waaba kartida waxa xabeebtu waaba waxa kartida ii yeelay soomaad garanin iyo dadnimada iyo inaan runta sheego iyo inaan ilaahay iyo inta wanaagsanba u mahad celiyo ma garatay markaa waxa weeyaan waa ku garanayaa ina madoobe waa ku garanayaa ina madoobe waa ku garanayaa guryahaad kismaayo ka dhaxday yaa lagaa qaadayaa guryahaad kismaayo boobtay yaa lagaa qaadayaa dhuxushaad sidaysay yaa lagaa qabtay way xanaaqsan tahay ina madoobe ina abti waa ku ogsoonay ina abti ceeb baa inaga raacday
عاب نمكي إثيوبيا صوماليا أبربرتي إثيوبيا إنay ka kiciso rag ka mida inay Kenyaati soo geliyaan Jubbaland Soomaaliya الله إله تاريخ ما يسبدشي الله إله هو تاريخ حن أو قرنتي مذابه ناس يدتك وكسوتشير كفنا وكسوتشير يكوا كتاجرس أيقو دتك ودن ماهن فارع محل دواربا مذابه المادير ليا ما قرتي دخبلاوبا مذابه المادير ليا صمات قرنين لكن تاريخ ما يسقريس تاريخ أيها إسكوريس أدونكو واسعونيا معنى والبا واسعونيسا أدونك تاريخ باكاريس حسوس باكاريس الله كشفر كولومبوس وحويان صادة وادا جدقين وردح رنطان كهدل والرنطو وقرارتاي لكن وداو نكوه هالكان كحيطما وحي ربان جبال inay Kenyaati joogo Kenya waa gumaysi dalka yaga amar la'aan bay ku soo galeen dadka yagi bay isku xasuuqeen kuwii dad isugu xigay isugu xasuuqeen hunguri la xiro war adduunku saar waa saxaro adduunka waa laga tagayaa daar haddii la qaadanayo cali mahdiyo xaaskiisa qaadan lahaayeen daarii dhaadheeraa ee uu xamarka taagay laakiin magax baa kaa haraya magax baa kaa haraya taariikh baa kaa haraysa taariikhda ayada ayaa ilmahaagu ayaa qabaa'ilkaagu u baxsan ayay Soomaali kugu xasuusan kugu ducayn Axmed Madoobe iyo kuwa Kenya soo galiyay dalka Soomaaliya ee dhirtii caruurtu dad dhirtii xooluhu cunayeen ee dadku harsanayeen ee beeraha ahayd intay dhuxul ka shideen caawa ay taallo cunaan markabku kula jabay sidaan u inkaaraynay maxay taariikhda ka tageen dadka waxaa aad la yaab ah oo aniga maskaxdayda ka weyn Soomaaliya waxay u burburtay inay xorayso dalka kilinka shanaad inay Kenya ka xorayso inay Itoobiya ka xorayso gaaris gobayna waa taariikh markii inta la aruuriyay gaaris dadka lagu xareeyay waa taariikh oo la rabay in la gubo waa taariikh maxamed siyaad barre ka fakiya dawladayada dadkii shalay 20,000 askari nooga dhimatay oo ruushku markaan qabsanay Itoobiya noogu soo hiliyay dadkii ayaga ah dad ka mid ah ayaa intay soo kaxeeyeen Kenyaati dadkii gumaysigaan ka xoraynaynay oo inaan xorayno dalka yagii u baaba'ay dad ka mid ah ayaa intay Kenyaati soo kaxeeyeen ayay Soomaaliya soo geliyeen dawlad shisheeye oo ay ugu talagaleen qayb Soomaaliya ka mid ah inta Kenya goosato inay gumaysato war ma dad baana war ma waan dhagteena iyo afkeenu ma wayna ismaqlaynin war miyaynan ilaahay ka baqay war waxaynu inagu ka dagaalamaynay 100 sano maxaynu Soomaali ugu keen miyaynan xishoonayn war taariikhda xaggaan taariikhda ka galaynaa xaggaan taariikhda ka galaynaa xaggaan ka galaynaa taariikhda waa su'aal in la isweydiiyo u baahan oo in la xuso u baahan waa taariikh in la isweydiiyo oo la xuso u baahan Soomaaliyeed waxaa la yidhi magacno meel dheer dhagaxna meel dhow maamaad aabbahay baan ka bartay dadka Soomaaliyeedow dal iyo dibad dawladnimaan rabnaa dal iyo Soomaali lamaan rabnaa anuu baraf kaasaan ku dhex noola